kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa intaynaan muuqaalka gudagelin inaad fiidiyowga like saartaan. Muuqaaladaynu soo gelino like-tooda aad bay u hooseysaa. Markaa saaxiibayaal like saaran muuqaalka aad baad u mahadsantihiin. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa farsamooyin aad ku horumarin karta xasuustaada. Waa wax aad looga xumaado markaad si lama filaana u ilowdo khudbad ama hadal aad ka soo horjeedinaysay dadku dhagaysanaya. Sidoo kale waxaad aad uga xumaan kartaa marka aad ogaato inaanad gurigaaga ama gaadhigaaga aanad geli karayn sababtoo ah waxaad soo ilowday furayaashii aad iskaga furi lahayd. Shaqooyinka maskaxda waxaa ka mid ah inay xogta kuu kaydiso isla markaana xogta si buuxda ay kugu soo celiso adoo si fudud u xasuusanaya. Haddii ay dhib kaa haysato inaad xog u kaydiso maskaxdaada ama aad xasuusato, waxaad u baahan tahay inaad horumariso shaqada maskaxdaada ee dhinaca xasuusta. Dadka xasuustoodu liidato ama aanay tababarnayn waxay si qaldan u dhaleeceeyaan awoodda maskaxdooda ee ay wax ku xasuusan karaan, waxaanay arrintan ku tilmaamaan xasuusta maskaxdooda oo hooseysa. balse waxay xaqiiqdu tahay inay maskaxdoodu u baahan tahay oo keliya in loo tababaro inay si fudud wax u xasuusato. haddii aanad ka cabanayn xanuunada maskaxda ee xaniba xasuusta maskaxda, waxaad si fudud u horumarin kartaa xasuustaada adigoo samaynaya farsamooyin lagu horumariyo xasuusta maskaxda. Haddaba waxaan halkan kugula wadaagi doonaa farsamooyinka lagu horumariyo xasuusta maskaxda. Number 1, tababar maskaxdaada. Siday muruqyadaadu tababar ugu baahan yihiin ayay maskaxdaaduna tababar ugu baahan tahay. Haddaba si aad u dhisto xasuustaada, ku xidhnow xasuustaada halkii aad ku xidhnaan lahayd waxyaabo ka baxsan maskaxdaada. Tusaale ahaan, haddii aad meel ku qortid wax kasta oo aad isleedahay aad xasuusatid, taasi waxay sababaysaa in xasuustaadu liidato isla markaana daciifto. Number 2, cuntada aad cunto. Cuntada aad cuntaa waxay saameyn ku leedahay xasuusta maskaxdaada. inaad cunto cuntooyin kor u qaadaya xasuusta maskaxdaada waxay kaa caawinaysaa inaad kobciso xasuustaada. Kalluunka iyo khudaarta ayaa la sheegaa inay aad ugu fiican yihiin horumarinta maskaxda iyo xasuusteeda. Number 3, waxyaabaha aad rabto inaad xasuusato marka hore xafid ama dhowr jeer ku soo celi xasuusta maskaxdaada. dadka qaarkood waxay sameeyaan si ay kor ugu qaadaan isla markaana u horumariyaan xasuusta maskaxdooda, ma kaydsadaan ama ma seefgareeyaan lambarrada ehelkooda iyo qaraabadooda. taa beddelkeeda waxay sameeyaan way xafidaan, hadhowna si fudud ayay u xasuustaan hadday u baahdaan inay wacaan. Sidoo kale dadka qaarkood waxay xasuusta maskaxdooda ku kobciyaan kuna dhisaan inay dusha ka xisaabiyaan, gaar ahaan xisaabta marka aanay badnayn, halkii ay ku xisaabin lahaayeen kalkuleetar ama wixii la mid ah. waxaad arkaysaa dadka qaar aad is odhanayso kalkuleetarkaba iyaga ka degdeg badan, siday markaaba kuugu sheegayaan xisaabta aad weydiisay, halka dadka qaarkood wakhti dheer ka fikirayaan. Haddaba ku dadaal shayada qaar inaad xafido, dushana aad wax ka xisaabiso, gaar ahaan marka ay xisaabtu tahay isku dhufasho. Number 4, qaybi waxa aad rabto inaad xasuusato. Tusaale ahaan, markaad rabto inaad xasuusato number ah 869375410, waxaad ku xasuusan kartaa kuna xafidi kartaa sidan 869375410. haddii aad sidan samayso, maskaxdaadu si fudud ayay u xasuusan doontaa. Number 5, si fiican u fahan xogta aad rabto inaad xasuusato. marka aad fahanto ujeeddada ka dambaysa xogta aad rabto inaad xasuusato, waxaa kuu fududaanaysa inaad xasuusato, halka ay kugu adkaanayso xasuusteedu haddii aanad fahmin ujeedkeeda. Number 6, sii akhri waxyaabaha muhiimka ah ka hor inta aanad seexan. taasi waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud u xasuusato, maskaxdaaduna u kaydiso. Number 7, jimicsi samee. jimicsigu wuxuu maskaxdaada ka dhigayaa mid si fiican u qabata xogta. isla marka aad dhamayso jimicsiga, haddii aad wax akhrisato, waxay ka qayb qaadan kartaa inaad si fudud u xasuusato wixii aad akhriday. channelka subscribe saar si aanay marnaba kuu dhaafin xogaha cajiibka ah ee aan ku soo gudbiyo barteenna Maamuusa Media.